مسؤولين ay kala hogaaminayaan gudoomiyaasha gobolka Mudug ee Puntland ee Galmudug ayaa maanta si wada jir ah u furay suuqa ganacsiga Gaalkacyo oo muddo 3 bari ah xirnaa kadib shaqaaqa ka dhalatay ganacsatada dhexdooda oo kaleefay in la xayiro goobaha ganacsiga ku yaala xadka labada maamul ay ka wadaagaan magaalada Gaalkacyo. gudoomiyaasha labada dhinac ay wehelinayaan maayirada ayaa ugu baaqay ganacsatada inay ka shaqeeyaan nabadgelyada. nabadda ila daydo qof walba nabad baa rabtaa way sugna kan xabadda ridaya xataa nabad buu rabaa xogaa markuu rido waa araraya meeshu ku ararayo wuxuu la ararayaa nabad buu rabaa dadka xabadda ridayo laga daa xabad ma rabno wax badan baa xabadna la ku dhaxriday oo aan iska qaban weynay qofkii la khiyaana oo ciidan meel soo galiya oo ciid meel soo galiya oo waxaan la isku ogeyn sameeya ilaahay waxaan ka baryaynaa madfac kaligiis ku dhaca oo inta dadka oo dhan dhinac ka soo maray kaligiis in alla ku marka hore waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun in Allah la intii ku dhimatay oo ugu horeeyaan ninkii halka joogo nabadda raadinayay ninkii ciidamada isku dhafka ah nala socday nabadda raadinayay ilaahay ha u naxariistaa wada raana ilaahay jannada ka waraabi inta kadib war la qaba xiiso malay Soomaalida tirada waxaan u maleynayaa 3 saacadood ka hor halkaan lama istaagi karin idan lama ina soo istaagi karin anaga lama soo istaagi karin waxay ku dhacday meesha in la soo istaago mujtamac oo dhan waxay gadaal uga yimaadeen markii dhowr qofood ay soo bareertay hadda waxaan ku wada taaganahay waa nabad ilaahay waxaan ka baryaynaa nabadaas oo kale in meel walba laga wada helaa ay siin noqotaa mid waarta meesha tan sidaa la socotaan ganacsatooy waagii hore labada maamul waxaa dhaxmari jiray shaqaaqooyin baa dhici jiray marka aan weyno geedaan wada harsano ama aan ku wada hadalno ama dhibaato dhacdo waxa oran jirnay wararka ganacsatada aha oo guriyaha isugu dhisnaayeen oo mataqaana ribaxa wadaagay oo waxyaalaha dhan imaartay isu sheeganay bal aan geedahooda hoos tagno baqaarkaas markaysan geedka hortiisa aan fariisan jirin halkaas biyahna lagu keeni jiray maanta anaga oo soconaa waxaan u nimid xal iyo markaysa inaan keenno kama maamul ahaan anagu hadda ciidan aan soo gelina deegaankan ama rabshado ama waxaan ka warqabnayna ma jirto marka maamulka xagga waraysan waxay yiraahdeen xasaradii taagan baan arag sida aawadeed marka waxaan codsi ka nahay maanta 3 maalmood baan waxaan ka soo shaqeynaynay sidii xabadda loo joojin lahaa sidii maanta kulankaan u dhici lahaa sidii la isugu imaan lahaa sidii waxa shuushka jira meesha looga saari lahaa I believe waa aaminsanahay Soomaalidu inay nabadda wada rabto laakiin ardaalka halka iyo labada ku dhex jiro waa iska qabanlaana ganacsatada ku dhaqan gobolka Mudug ka soo kala jeeda Puntland ee Galmudug ayaa dhankooda sheegay in nasiib darro ay tahay in ganacsatada dhexdooda khilaaf u yimaado iyagoona raalin gelin ka baxshay xirnaanshaha suuqa nabadda waa soo dhaweynayna waxa dantu ugu jirtaa waa nabadda qoraxda waxaan u taaganahay waa nabadda bulshada deegaamada ku nool dhammaantood waxa ay danaynayaan waa nabadda waxay dantooda u soo layaceen oo qof walba uu dantiisa meel ku soo xiro u soo tagay waa nabadda waxaan rabnaa waa soo dhaweynaynaa nabadda iyadaan dib ugu jirtaa waxaan rabnaa wixii dhacay inaan xal kaga gudbino xalkaan kaga gudbinaa waxa weeye inaan shaqaaqooyin dambe meesha adaabiyada ah oo suuqa ah oo mujtamaca tirada badan ku nool yahay inaysan ka soo laaban waxaanu nahay dadkii xalli lahaa waxa banaanka magaalada ka jira gudihii inaan Puntland magaceeda Allah subhanahu wa ta'ala baa mahad iska leh halkaan maanta ina ku kulmiyay awalan waxaan ka tacsiyeynayaa walaalihii iyagoo ka shaqeynaya masaalixda ummadda muslimiinta oo aan ku jirin wax dagaal ku dhintay meeshan waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wixii wadanka ka dhici jiray iyadoo aan ahaan jiray dadka xalliyo gacanta ku qabta meel kastoo dagaal ka dhacayo haddana maanta in anaga nala ku isku kaayo yimaado عارون علينا ووحنا شرف درنا تالجلين بنا إذا كسينينا وحنا دنينا إن شاء الله هذا كذب إني صندعين مدة سنان جمعها يسوق بسان لهين وأن أحلل لهين وأن أدتشين لهين أنا قاعد بقول بالله وشيء نويا لا وحنا نقص عصلادنا مع المولدان لا تسنينا وحنا سرتينينا إنا وحنا نقص عصلان إن شاء الله سنان سوق السونان جري أنا سوق السونان وبالله التوفيق والسلام عليكم. dadweynaha ku nool magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa soo dhaweeyay afurnaanshaha maanta dib loo furay suuqa magaalada Gaalkacyo iyagoo cid kasta oo ku nool Gaalkacyo ugu baaqinay doorkooda ka qaata nabadda waxa weeye baadilka in loo garbeeyo ma ahan dadka baadilka wada inta aan baadilka rabin ba ka badan sida ilaa hadaan umadu waalayn waa la qaban karaa umada baadilka wada la qabto umada baadilka wada
oo wada hadleen oo wada nabad ku baaqeen oo waxa loo soo dhaweeyo intii nabad in laga wada shaqeeyo wax dadka dhan anfacaysa qaadka ayaga leh liido ayuu inaga qaadka iskale lama hayo dadku waxa ku heli karaan markii qofku khaldan oo qaadka qaatay ama aan khaldan qofkii khaldan la helo sheegaya reer mudugow idinka isle inaga isku dada wiil iyo gabar iyo seedi iyo sodog baana Xuseen Axmed Farax Hadari warbaahinta dawladda Koonfur Galbeed magaalada Gaalkacyo.